munaasabadan ballaaran oo lagu xasuusanayay sanad guuradii koobaad ee kasoo wareegatay xasuuqii maleeshiyaadka al-shabaab ee jaamacadda magaalada Gaarisa ugu geysteen in ka badan 147 arday oo wax ka baranaysay jaamacadaasi ayaa maanta lagu qabtay xarunta jaamacadda. munaasabadan ayaa waxaa kasoo qayb galay gobernatoraha countiga Gaarisa Nadiif Jaamac Aadan, gudoomiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka Kenya ahna xildhibaanka laga soo doorto Gaarisa Aadan Barre Ducaale, senataro, xildhibaano, qaybaha kala duwan ee bulshada iyo sidoo kale maamulka jaamacadda. waxaana martay sharaf ku ahaa safiirka dowladda Soomaaliya u fadhiya dalkani Kenya Jamaal Maxamed Xasan iyo qunsulka safaaradda Cali Maxamed Sheekh Cali Bagadi. intii aysan munaasabadu bilaaban ayaa mas'uuliyiinta ka qayb galaysay waxa ay ka qayb galeen orod marathon kaasi oo daahfur u ahaa munaasabadan lagu xasuusanayay xasuuqa ee maleeshiyaadka al-shabaab ay u geysteen ardadii wax ka baranaysay jaamacadda Gaarisa. munaasabadan ayaa waxaa khudbado kala gedisan oo ku aadan xasuusta laga dhaxlay ardaydii ay maleeshiyaadka al-shabaab ku xasuuqeen jaamacadda Gaarisa ka jeediyay mas'uuliyiintii kala gedisnaa ee ka qayb galay. waxaana sidoo kale goobta hadallo ka jeediyay qaar ka mid ah ardaydii ka badbaaday weerarkaasi, waxaana ay ka sheekeeyeen qaabkii weerarkaasi uu ku dhacay, iyadoo sidoo kalena ardayda goobta ka hadashay ay ka mid ahaayeen qaar ku dhaawacmay weerarkaasi arxan darrada ahaa isla markaana dhaawacaasi ka badbaaday. markii ay soo gabagabowday munaasabadda ayaa waxaa si rasmi ah gudaha jaamacadda looga furay goob lagu xardhay dhammaanba magacyada 148 qof oo ku geeriyootay weerarkaasi arxan darrada ah oo 2 bishii Abriil sanadkii 2015 jaamacadda Gaarisa ay ku qaadeen maleeshiyaadka al-shabaab. waxaana halkaasi si wadajir uga hadlay maamulaha jaamacadda Gaarisa Professor Ahmed Cismaan Warfa oo sheegay in jaamacadda dib loo furay isla markaana hadda ay dhigtaan in ka badan 100 arday. waxaana sidoo kale mas'uuliyiintii goobta ka hadlay ka mid ahaa gobernatoraha countiga Gaarisa Nadiif Jaamac Aadan iyo xildhibaanka aqlabiyadda baarlamaanka dalka Kenya ahna xildhibaanka laga soo doorto Gaarisa Aadan Barre Ducaale. waxaana dhammaantood ay sheegeen in al-shabaab wax kasta oo sameeyaan aysan isku dayi karin inay xiraan jaamacadda Gaarisa ayna ku dadaali doonaan sidii jaamacaddaasi oo ah tii ugu horeysay oo laga furo magaalada Gaarisa ay u sii shaqayn lahayd. bartaaladan waxaa dhisay county government-ka marka maanta waxaa munaasabadii lagu dhaartay iyada lagu tixgelinayay taas ayaa munaasabad ku joognaa. marka wada mahadsantiin kulligiin. waqtigan la joogo waxaa dhigataa 160 arday ay iska bixiyaan kuwii dawladda ay keen leedahay waxay imaan doonaan September ilaa yiraahdo kuna ay iska bixiyaan. waxaan xusi haynaa sanad guurahaas ka soo wareegay maalinkii meeshan lagu laayay caruurta faraha badan ardayda jaamacadda Naito Gaarisa University College. anagu aad uga xun marka waa xasuusta waxaan ku xasuusanaynaa arday salaayay oo aan ka xunnahay. sida aan hore u sheegnay waxaan leenahay arintaas oo kale inaysan ka dhicin countigeena iyo wadankeenaba ayaan arintan maanta u sameeynaynaa munaasabadan. 50 sano ayaan jaamacad helnay al-shabaab jaamacad anaga ma xirayso annaka daarma aan iska xirno laakiin al-shabaab tii noo soo duusho anaga jaamacadooda xiraan haddaba jaamacad qabaan iyo iskooladooda. marka ummadana waxaan leenahay mahadana u celinay ummadana la degan magaalada iyo gobolka iyo wadankaba oo masiixiga oo ayakana nala istaageen oo dhaheen arrinkan arrin diini ma aha, arrin muslimiinta quseeyo ma aha, waa arrin adduweynaha quseeyo. marka ummadana waxaan leenahay soo dhawaada. ugu dambeyntii safiirka dowladda Soomaaliya u fadhiya dalkani Kenya Jamaal Maxamed Xasan ayaa waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya mar kastaba ay garab taagan tahay dowladda Kenya isla markaana labada dal ay iska kaashan doonaan sidii loo cirib tiri lahaa maleeshiyaadka al-shabaab oo qalqal ku haya ammaanka labadaasi dal. aad baa mahadsan. maanta waxaa sharaf weyn noo ah inaan kala soo qayb galno xuskan walaalaheen reer Gaarisa. sida halka aragtaan waxaa la soo bandhigay magacyadii dadkii wax ka soo gaareen dhibaatada ka soo gaartay jaamacaddan sanadkii hore. runtii waxaan u nimay inaan muujino taageeradeeda oo aanu tusno cadowga in aan kala qaybin karin dhibaatada ka geystaan Gaarisa iyo tay ka geystaan Muqdisho iyo tay ka geystaan Yurub iyo meel kasta iskooda mid dad aan dambi lahayn oo arday iyo dumar iyo caruur iyo culimo iyo cid ay reebayaan ma jirto. marka waxaan tusaynaa aan u nimi inaan u muujino taageero iyo inaan wax wada qabsano iyo sidaan isaga dhicin lahayn. jaamacaddan dad badan baa dhigta, arday badan baa dhiganaysa ka muuqata, hadda waa soo noqotay, dib baa loo soo furay. waxaan ku dhiirigelinaynaa qof walba deegaanka dadka Soomaalida ahayn ciddii kari karta in jaamacadda timaado oo tusto shabaab inaan jaamacaddan xirmayn, jaamacaddan xiri karin.
annaguna waa garab taagana walaalaheen waxaanu aad u danaynaynaa oo jecelahay inaan ka shaqeyno oo hadda ku wada jirna sidii xadka Kenya iyo Soomaaliya shabaabku ay inta badan amni darro ka sameeyaan sidii aan uga shaqeyn lahayn amni darrada wax uga qaban lahayn labada dhinacba laba wadanba dhibaato ku hayaan saan su kaashan lahayn u xiri lahayn meelaha ay soo maraan oo dhan dadka dhibaateeyaan Cilmi Maxamed Waare raadiyaha iyo telefishinka qaranka magaalada Gaarisa xarunta gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya.